barnaamijkani waa barnaamij aad iyo aada u fiican. barnaamijkan JPLG-du waxa uu ka bilaabmay barnaamijkani Somaliland 2008 waxaanu ka bilaabmay degmooyin gaar ah aan Somaliland oo dhan ku baahsanayn duruufaha markaa jiray awgood. hase ahaatee haddii uu imika 14 sannadood socday, lagama maarmaan waxa ah maanta oo barnaamijkiisii aynu dib u eegis ku eegayno reviewga programkan iyo qorsheynta sanadka soo socda. lagama maarmaan waxa ah inaynu waxyaalaha qaarkood ka bedelo oo ay sababtu tahay Somaliland 108 degmo ayaa ay ka kooban tahay. 108 degmo 23 degmo waa degmo doorashooyin, waa degmooyinka laga doorto meerada halkan fadhiya iyo golayaashay guddoomiyeyaasha u yihiin inta imika fadhida iyo inta maqanba. wasaaradda arrimaha guduhu oo barnaamijkan iyadu maxaanku dhahdaayay hogaamisa ama liirgaraysa haddii muddo la qiimeynayay oo arrintan la arkay, waxaan hadda u aragnaa in la dhammaystiro barnaamij 2-3 sano hortood ay dowladda Somaliland soo saartay oo loogu magac daray oo la yidhaahdo Somaliland led expansion, in lagu dhammaystiro dhammaan degmooyinka kale oo ay sababtoodu tahay barnaamijkani barnaamijyada uu ka shaqeeyo degmooyinka uu ka fuliyo. waxaa ka mida maamulka, waxaa ka mida maxaanku dhahdaayey dhaqaale abuurka, waxaa ka mida maxaanku dhahdaayey degmooyinku sidii ay u samayn kari lahaayeen barnaamijyadooda, miisaaniyadooda, cashuurahooda iyo dhaqaalahooda. si markaa aanu dalku u kala korin ayaynu doonaynaa degmooyinku inta la isugu soo dabaalay in degmooyinku ay ka wada qayb galaan maxaanku dhahdaayey barnaamijkan. This program of the JPLG has been started in Somaliland by 2008, and by now it was going for 40 years with only 8 districts in Somaliland. In 2019, the Somaliland has already introduced a program called Led Expansion JPLG in districts in which the JPLG was not going on. So we have expanded in 3 districts, Ainaba, Lascano, and Arigabo, and by this year we have already included for the other 7 districts of the electoral districts in Somaliland. I would like to inform the international community and the 8 countries that there are 108 local governments in which we have categorized with them as D districts, which does not have an elected local district councillors. So the most important thing for the time being, in accordance with the review of this program and the future planning of the JPLG, we want to upgrade the D districts so that the JPLG program will be introduced and will be carried out by these districts in order to make a development for their administration, security, and for their local government program. The DDF program, which is District Development Form, will be accommodated for the planning of this program by 2023 for the commitment and for the sustainability of the program of the local government for all districts of Somaliland.
So I would like to inform the donor countries and the international countries of the European countries and the UN family to be prepared for this program and to make the donation and commitment of the aid of the 2023 for the review and for the planning of the local government programs. Thank you very much.